dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si cad u diiday in xabad joojin lala galo Iiraan, iyadoo sheegtay in xal kasta oo waara uu ku xirnaan doono in si buuxda loo burburiyo kaabayaasha militariga Iiraan, gaar ahaan in meesha laga saaro gantaalada droniska iyo xubnaha hogaaminaya ilaalada kacaanka Iiraan. maalin ka hor Sacuudiga ayaa si cad u qaatay isna mowqifkan lagu burburinayo awoodda Iiraan ee militariga iyo sidoo kale hogaamiyayaasha dowladda Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu sheegay dhowaan in wadamada khaliijka ay la jiraan Mareykanka isla markaana wax badan ay ka dhaxeeyaan. safiirka Imaaraadka Carabta ee Mareykanka Yusuf Al-Utaiba ayaa sheegay in xabad joojinta kaliya aysan wax ka bedeli doonin xaaladda amniga gobolka, isla markaana loo baahan yahay in la wajaho awoodda militariga ah Iiraan oo ay ka mid yihiin gantaalada iyo kooxaha ay taageerto. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale xaqiijiyay inuu qayb ka qaadan doono dadaalada dib loogu furayo marinka muhiimka ah Hormuz oo ah halbowlaha ugu muhiimsan ee dhoofinta shidaalka caalamiga, gaar ahaan wadamada khaliijka. Abu Dhabi ayaa mar kale adkeysay ballanqaadkeeda dhaqaale, iyadoo xaqiijisay in maalgashi dhan 1.4 trilyan lagu sameyn doono gudaha Mareykanka, taasoo muujinaysa xiriirka istiraatiijiga ee soo xoogeysanaya ee Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. toddobaadkan fadeexadii ugu culseed iyo eedeymo waaweyn ayay wajahayaan nidaamka Netanyahu, taasoo ka dhalatay gantaalada Iiraan ay ku weerarto goobaha muhiimka ah ee gudaha Israa'iil, gaar ahaan xarumaha nuclear-ka iyo warshadaha difaaca ee ku yaala magaalooyinka Dimona iyo Arad. si kasta oo loo riday nidaamka ka hortagga gantaalada, waxay waayeen raxan gantaalo oo Iiraan si toos ah ugu bartilmaameedsatay xarumo aad loo ilaaliyo ammaankooda. waxaa sidoo kale dood adag ka taagan tahay qaabka ay ku heshay bartilmaameedyada saxda ah, iyadoo shaki weyn ka dhex abuurtay madaxda Israa'iil. warbixin ay daabacday Washington Post ayaa sheegaysa in gantaalada Iiraan ay si toos ugu dhaceen goobaha ay ku yaalaan magaalooyinka Dimon iyo Ard, kuwaasoo kalifay inay dhaawacmaan in ka badan 120 qof oo qaarkood ay yihiin dhaawacyo culus. Israa'iil waxay iyaduna sheegtay in weli Iiraan ay haysato gantaalo aad u fara badan iyo kayd, taasoo burbur iyo khalkhal gelin karta nidaamka difaaca cirka ah ee Israa'iil. nidaamka ka hortagga gantaalada ayay Israa'iil sheegtay inaysan awood u lahayn inay xakameeyaan ama ay qabtaan weeraro u dhaxeeya 3,000 ilaa 5,000 oo gantaalo ah, taasoo weli Iiraan ay isticmaali karto. dhinaca kale, warbixintu waxay tilmaamaysaa in caqabadaha ugu waaweyn Israa'iil aysan ahayn qiimaha gantaalada ay isaga difaacayso gantaalada Iiraan, balse ay tahay helitaanka kayd ku filan oo looga hortago dagaal dheeraada iyo gantaalo kala duwan oo Iiraan ka yimaada. khilaaf aad u xooggan ayaana ka dhashay arrintaasi. haweenka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaana xilkii isaga casilay siday baahisay telefishinka Israa'iil ee ka soo baxay loo yaqaano Janaal 14. arrintan waxay dhacday 24kii saac la soo dhaafay, hadallo looga soo xigtay oo ku aadan dhaliisha Netanyahu xaaskiisa iyo wiilkiisa uu ku sheegay in loo baahan yahay in laga badbaadiyo, isla markaana uu ku hadlay ereyo cunsuriyad ah uu ku weeraray xubno ka tirsan baarlamaanka Israa'iil oo asalaan ka soo jeeda Morocco, kuwaasoo ku sheegay inaysan ku habboonayn inay matalaan Israa'iil. midowga Yurubna waxa uu ka digay yaraanta gantaalada looga hortago weerarada, waxaana uu tilmaamay in dunidu xilligan ay wajahayso culays aad u xooggan, isla markaana ay sii badanayso soo saarista gantaalada. gudoomiyaha arrimaha difaaca midowga Yurub Adairos Kulisu ayaa sheegay in isticmaalka gantaalada hawada uu gaaray heerkii ugu sarreeyay awoodda wax soo saarka, taasoo muujinaysa cadaadis istiraatiiji oo sii kordhaya. waxa uu sheegay in 5 maalin ugu horeysay dagaalka Iiraan, khaliijka iyo Mareykanka ay adeegsadeen ku dhawaad 800 oo gantaalada nooca Patriot-ka ah, halka awoodda wax soo saarka sanadlaha ee Mareykanku ay hadda tahay qiyaasii 750 gantaal sanadkii. xisaabtu si cad ayay u hadlaysaa, ayuu yidhi, isagoo muujiyay farqiga weyn u dhexeeya isticmaalka degdega iyo wax soo saarka gaabiska ah.